waxaan aaminsanaa amaba dad badan hadda ay aaminsan yihiin haddii jaaked la'aan ama wax qabowga kaa celiya adigoon haysanin bannaanka aad sidaas ku baxdid inaad xanuunsan kartid ama kugu dhici karo waxa loo yaqaano hargabka. aragtideedu waxay la tahay waxay ka mid tahay arrintan waxyaabaha bulshooyinka iska aaminaan. loojig ahaan haddii aad u fiirisidna ay kula noqonayso mid macquul ah in xiriir uu ka dhexeeyo qabowgaas iyo hargabka kugu dhacaya, laakiin arrintaas waxaa beeniyey khubarada caafimaadka. dabcan waxaa la arkaa xilliyada qabowga inuu badan yahay hargabka. haddaba maxay tahay xiriirka ka dhexeeyo xilliyadaas qabowga iyo hargabka? haddii aan dhahnay qabowga ma sababo hargab, waana su'aasha isweydiinta mudan. isla su'aasha igu sababtay inaan baaritaan yar aan ku sameeyo hargabka iyo xiriirkiisa qabowga, maadaama waddamo badan hadda ay galeen xilliyada qabowga ee loo yaqaano winterka. dhakhtarkan waxaa lagu magacaabaa Larry, waa dhakhtar guud ee caafimaadka. wuxuu leeyahay kuma xanuunsanaysid inaad qabowgaas aad ku baxdid, laakiin wuxuu qayb ka noqon karaa xanuunkaaga maadaama fayrasyo badan ay soo baxaan xilliyada winterka, ayna macquul tahay in gacmahaaga aad ula tagtid sankaaga iyo indhahaaga. waa kan asagoo ka hadlaaya. Can you get sick from being out in the cold? So the short answer is no, you can't get sick from being out in the cold. The big thing is that in the cold weather months and in the winter, a lot of the upper respiratory viruses, which are seasonal, come out. And so you see a lot more people getting upper respiratory viruses in the wintertime, but it doesn't have anything with being cold. Now, the other big thing is that your nose will run a lot more. Sometimes your eyes can water. So you do a lot more rubbing your nose and touching your eyes. And so you take your dirty fingers that a lot of times have these viruses on it, and you put them right into your face, and that's how we get sick. So it increases your risk. So while you see a lot more people getting sick, and you may get sick during the winter, it's not from being cold or being outside. hargabka loo yaqaano common cold waxaa sababa ilaa 200 oo fayrasyo oo intooda badan ay active yihiin ay soo baxaan xilliyada qabowga. kan ugu caansan ee dadku ku dhaca waxaa loo yaqaanaa rhinovirus. in fayrasyadan ay kugu dhacaan xilliyada qabowga waxaa sababa in difaaca jirkaaga uu hoos yahay. waxyaabaha difaaca jirka hoos u dhigayana waxaa ka mid ah xilliyada qabowga in dheecaamadii neefmareenka ay qalalaan, uu jirkana tamar badan uu ku bixiyo si uu qoyaan badan ugu sii daayo si ay fayraska ula dagaalamaan. in heerkulka jirkaaga uu yaraadana waxay sababi kartaa in dheecaamadaas ay yaraadaan, waxaana loo yaqaanaa hypothermia. qofka markuu qandho yahay ama qandho ay hayso, jirkiisu wuu kulul yahay. kuleelkaas waxaa lagula dagaalamayaa fayraska oo jirka soo galay. xilliyada qabowga markii oo fayraska uu ku soo galo jirkiina kuleel uu iskugu difaacana uusan haysanin, waxaa fududaanayso inuu fayraska ku faafo. sababta kale difaaca jirka hoos uu yahay waqtiyada qabowga waxaa ka mid ah in qoraxda aysan soo bixin inta badan xilliyada winterka. waxaan wada ognahay in qoraxda laga helo vitamin D oo qayb weyn ka qaato difaaca jirka. marka waa isla ogaanay cudurrada hargabka ee loo yaqaano flu iyo common cold inay yihiin fayrasyo sida coronavirus oo kale, aanan la ogeyn xaqiiqdii meesha ay ka soo bilowmeen, laakiin laga qaato tallaalo sida looga qaato coronaviruskaba. laakiin ma ogtahay in taariikhda uu soo maray hargab ka weyn coronavirus? waxaana lagu magacaabi jiray Spanish flu. waa cudur ka daran coronavirus oo aad loogu dhammaaday xilligii 1918 ilaa 1920. inta ku dhimatayna ay gaarayso 50 milyan ilaa 100 milyan. xilligaas waxaa dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka. inta cudurka Spanish flu ku dhimatay waxay ka badnaayeen intii ku dhimatay dagaalkii koowaad ee adduunka. aragtidayda haddii aan dhowr eray aan ku soo koobo, qabowga kuguma sababayo hargab, laakiin wuxuu qayb ka qaadanayaa fursadaha aad ku qaadi karto hargabka. aan wada daawano dadkan waxay ka aaminsan yihiin iyo aragtida ay ka dhiibteen. Many of our mothers warned us, dress warmly or you'll get sick. But is there any truth to the rumor that cold weather will cause illness? What do you think? I think that's an old wives' tale. That's what I heard growing up, but I don't think there's any truth to that. If someone has a weakened immune system, yeah. Where other people, no weather seems to faze them. Everybody's different. No, but if your immune system is already weakened, the cold weather makes it harder for you to fight off diseases and bacteria. I think it's like the coming in and out of of buildings, like coming into the cold and then back into the warm, and that
makes you sick. I think that's what I'd heard. So, what's the real answer? Let's find out. That is a wives' tale. You are only going to get sick if you're exposed to germs or virus. Now, the interesting part about this is generally people are more sick in winter, and that's really just because we have more viruses floating around. Influenza virus, the flu virus, is actually very common in the winter times. And since it's cold outside, many of us are huddled together in warm places, sharing our germs. And so you're just more likely to get sick in the wintertime. But the cold will not make you sick. Germs will. waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkan. Inta la xanuunsan hargabka iyo cudurro kaleba Allaha caafiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.